mudane farmaajo afartii sane xasan sheekh xukuumaddiisu joogtay waxa Soomaaliya kaalinta afraad ka gashay dalalka ugu musuqa badan Afrika waa sida dunida arrimaha Soomaaliya danaysa sheegtay madaxweyne xasan sheekh oo doonaya inuu mar kale soo laabtana wuxuu ku doodaya inuu kab cagaaran dadka cagaha u galiyo farmaajo xaadiga kaaga baxay arrimahaas runtii waxyaabaha runtii shacabku ay kaga sii jeesteen dawladda waxa kamid ah musuqmaasuq mudane farmaajo murashaxiin badan baa u tartamaya xilligan madaxtinimada Soomaaliya maxaad kaga duwan tahay kuwaas waa su'aal fiican runtii waa wax loo baahan yahay in xildhibaanadu isweydiiyaan murashaxiintan soo hor istaagaya oo qof walba program la imaanayo maxay ku kala duwan yihiin aniga waa la soo tijaabiyay intii aan joogayna waxaan cadeeyay oo aan base ka dhigtay ama asaas aan ka dhigtay saddex arrimood Somaliland iyo Soomaaliya intii xukuumaddan joogtay wada hadallada dhexmaray dhammaan wada hadalladaasi way fashilmeen shacabka labada dhinac waxa muuqatay inay si kala fogaanayaan hadiiba aad madaxweyne noqoto qorshe nooceed ku wajahaysa wada xaajoodka Somaliland waxyaabaha dawladdan ay ku fashilantay oo loo baahan yahay in isbedelka ku yimaado kowka ah horta waa dib u heshiisiin waana waxyaabaha aad looga gaabiyay dalkan burbur muddo dheer uu ku jiray dadkii waa kala aamin baxeen qabiilal loo dagaalay dawladnimaduna runtii waxa ugu horeeya hadda Soomaaliya xaaladda ku jirto in laga bilaabo dadka in la soo jiido oo la walaalayo mudane farmaajo aad baad u mahadsantahay Nairobi ma muddooyinkii u dambeeyay saldhigu ahayd siyaasadda waxa la sheegay inta halkaas ku sugnayd inaad kulanteen mas'uuliyiin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirre horkacayo oo ka wada hadasheen arrimo la xiriira midnimada Soomaaliya mudane farmaajo waftiga Cabdiraxmaan Cirre markaa Nairobi ku kulanteen waxa kale ka wada hadasheen waa dad Soomaaliyeed oo runtii niyad wanaagsan runtii doonaya caruurta Soomaaliyeed iyo mustaqbalka Soomaaliyeed inuu la mid noqdo dadka horumaray taasna waxay ku imaanaysaa midnimo aniguna waxaan u sheegay Soomaaliya hadii la rabo caruurteena inay caruuraha adduunka ah ay la tartamaan ama ay la mid noqdaan waa in madaxda Soomaaliya meel kasta ay joogaan inay isu yimaadaan ay mustaqbalka caruurtooda ay ka hormariyaan siyaasadda wafdigaasi si briefly ah yaan u kulanay runtii de waxay sugayaan adigoo kale Soomaaliya imika madaxtinimada doorashadii baad u tartamaysaa murashax mucaarada tahay Cabdiraxmaan Cirre kale waa murashax mucaarada Soomaaliland buu ka tartamaya nidaam siyaasadeed miyaa dhigateen oo yaani qorshe siyaasadeed oo ku duraysan hadii labadiinu baa guuleysataan waxaan u hadalnay si Soomaalinimo ah si walaalnimo ah yaan u hadalnay taabudheeda miyaan la oran karin ololahaaga qayb ka ahayd in Cabdiraxmaan Cirre iyo waftigiisa xirsiyo buubaaya kala hadasho in midnimadii mar kale soo laabato haddee runtii dareenkaas waa wada qabnaa waa tahay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo bal waxaad nooga warbixisaa xiriirka adiga beesha caalamka xilligan idinka dhexeeya runtii beesha caalamku Soomaaliya muddo dheer yay kaalmo